مشرح قولها برلمان كدولة بونتلاند حلبان عبد الجمال محمد عثمان وحيقول لك سياسة سويتاي هوغان عدالة يقدون ومشرح قولها برلمان كدولة بونتلاند سنة لبكون سغالية طبعا هذا هو مواطن حلبان كدورو مشرح قدوميها قولها وكيلة دولة بونتلاند حلبان عبد الجمال محمد عثمان وحقبتكيسي sidoo kale soo shaqayntii dawladihii kala dambeeyay ee dawladda Puntland waxa uu taagan yahay qabashada golaha baarlamaanka dawladda Puntland gaar ahaan gudoonka golaha waa mas'uul ka soo bixi kara xilkaas isla markaasina gudan kara waajibaadka dawliga ee qaran waxa halay siyaasadiisa hoggaan cadaalad iyo gudoon haddaba xildhibaan ay ku dooro arrimahaas iyo wax qabadkii kala duwanaa oo dawladihii hore ka soo qabtay xildhibaan Cabdi Jamaal Maxamed Cismaan ina wax ka bedeli karo maadaama siyaasadda dalka muddo ku soo jiray odayahay xoogaala wax badan la socda arrimaha ay u baahan tahay arrimahaas iyo arrimo la mid ah oo kale in aan wax ka qaban karo darteeda ayaa igu kalliftay inaan soo taago inaan soo raadiyo gudoonka golaha baarlamaanka dawladda Puntland ديديغايو هادعو دريف يدا دروس يا وديغي كرا دوغاتو سنمارين كرا بكراتا شوران كرا يا 2017 إلى 17 inaan hadda soo aado golaha wakiilada waxaan u arkay in aan baahiyaha dalka iyo dadku qabaan oo ah in wax laga bedelo dawladnimada hadda 20 waxaan runtii aan ballan qaadayaa inaan hogaaminta golaha hadda ay doorataan hufnaan iyo tashi baarlamaanka dhexdiisa iyo wada tashi aan ku shaqeyno ديديغايو هادعو دريف يدا دروس يا وديغي كرا دوغاتو سنمارين كرا صاحبتي عن حبك على golaha wakiilada hadda loo dhaariyay maanta noo soo dhaariyay ka codsanaya ugu taageeraan codkooda anigoo u taageer inaan noqdo gudoomiyaha مشرح قدوميها قولها وكيلة دولة sidoo kale waa mas'uul taageero weyn ka haysta dadka deegaankiisa iyo shacabkiisa waxa si weyn u soo dhaweeyay shacabka deegaanka Dhaxar iyo sidoo kale gobolka Sanaag Hayla iyo deegaanadaas oo dhan وليد القابضن دنا وليد الوعن دنا داعدني ما سوغن عاجل وحيوان لا اشكال على وجه دولة Puntland gobolka Highland iyo gobolka Sanaag iyo gobolada kale oo dalkoodna bay la mid yihiin oo gobolada dastuuriga difaacuna khasab weyn in dalka la difaaco cid marti looga yahay ma jiro gobolka dastuuri inay gobolka difaacdo iyo gobolada kale oo Puntland xuduudaheedaba cidna marti uga ma aha dawladda Puntland inay xuduudaheeda soo waajibaad saaran weeye dawladda oo ay ku dhaaratay kitaabka ku mariyay dastuurka iyo kitaabka Ilaahayda inaan ugu dhaaran dalkeena waa mas'uul ka qayb qaatay difaaca dalkan isla markaasina jiida u tagay sidii uu difaaci lahaa dalkiisa waa kan isagoo xiran diriiska dawladda isla markaasina ka garab dagaalamaya ciidamada naftu horayaasha ee dawladda Puntland أننا
u ah siyaasaddiisa hoggaan cadaalad iyo guddoon. haddaba xildhibaan ay ku dooro arrimahaas iyo waxqabadkii kala duwanaa uu dowladihii hore ka soo qabtay xildhibaan cabdijamaal maxamed cismaan. waxaad bilaabna soo jeedinaya ciidamada hadda nool oo difaaca ka taagan oo dariiska iyo qoriga u sita heeganka u ah diyaar u ah inay u dhintaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda u dhintaan waxa weeye waxaad bilaabna baan ku soo jeedinaya bogaadin baan uga soo jeedinaya ilaahayna intii markii hore sheegay baan uga baryayaa ilaahay bogaadadoodana cimrigoodana caafimaad ku dhammaystiran